qaar ka mid ah odayaal dhaqameedada gobolka Sool madaxda ururada dhalinyarada haweenka ayaa maanta waxay kulan ay isugu yimaadeen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ku cambaareeyeen kuna tilmaameen wax laga xumaado falkii lagula kacay taliyihii qaybta booliska ee magaalada Laascaanood Xasan Ismaaciil Yuusuf Gamcayare kaasoo ay amar diido ku sameeyeen qaar ka mid ah ciidamada booliska ee saldhigga dhexe ee magaalada Laascaanood shaqaaqana halkaasi ka dhacday odayaashan ayaa taageero buuxda muujiyay taliye Gamcayare kaasoo ay sheegeen inuu yahay nin wax weyn ka qabtay ammaanka magaalada Laascaanood kala dambeyntina dib u soo celiyay odayaashii iyo cuqaashii halkaasi ka hadlay ayaa waxa ka mid ahaa Caaqil Maxamuud Askar Yuusuf iyo Suldaan Hurre Muuse Jalad oo ka mid ah odayaasha iyo mas'uuliyiinta madax dhaqameedada ah ee gobolka Sool aad looga tixgeliyo magaalada isaga ugu horeeyay intii ka horeysay oo dhan ama gudoomiyada ama taliyada boolis waxay ahaayeen dad aan shaqadoodu soo dhaafsin karinta shishe ee kantaroolka haddii aan degdeg loo soo celin oo loo madax bannayn shaqadiisii aanu ka aragnay daacadnimada ahayd waxay keenaysaa inaanu go'aansano in cid waliba ciidan beeleedkeedii magaalada la soo gasho maamul shaqeeyana aanu suuragal ka noqon magaalada yaana lagu kaliifin talaabada inaanu qaadno oo aanu amniga cid waliba amnigeeda gooni ugu tashato degdeg ha loo soo celiyo taliyihii haddii aanay taasi dhicin maamul ka jiraya ma jiro meel walbana ciidan beeleed baa soo buuxinaya ciidamadiinuna looma baahanayo degdeg baad u qaadanaysaa oo maamulka dibadda ka joogtay waxyaabaha aanu ugu soo dhiirnay oo ku soo meesha cagaha ku soo dhignay waxa weeye markaanu aragnay ninka shaqadiisii maamul daadejinta nidaamku u shaqaynayo nin aan magaalada ka haybaysanayn nin shaqadiisa yaqaana markaanu aragnay waanu aaminay anagu dawlad yaqaan baanu nahay maamulkaanu naqaanaa ninkii maamulka garanayana waanu garanaa kii xumaynayana waanu garanaa waxa weeye markaanu ninka aragnay oo fahanay nin gobolka nabadgelyadii gacanta ku dhigay aqoon u leh taqaqusa wax garanaya ayuuha sidaa awgeed waxaanu go'aansanay inaanu haddaanu beeshaa nahay gacan buuxda siino la shaqayno waa ninka keliya aanu anagu intii gobolka maamul ka jiray aanu isgarab taagnay daacadna u noqonay maaha dadka nagaba xigo maamuladii ma jiray buu noola mid yahay waxaase aanu ku doorannay daacadnimadiisa howlkarnimada waxqabadka iyo isku kalsoonida uu leeyahay baanu ku doorannay anagu ma nihin dad maamulka u dhuhdhuleeya dad wax badan ku qaba waxaanu anagu ilaashanaynaa oo kaliya gobolka nabadgelyadiisa inaanu nabad helo alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan shirka inta isugu timi waan salaamayaa anoo ku hadlaya afka beesha Maxamuud Bari waxaan halkan ka cadeynayaa sidii horeba ay u sheegeen dhammaan intii ugu horeysay madaxdii ugu horeysay afka ay yiraahdeen baan waafaqsanahay haddaan sida gobolku ku socdo wax laga bedelina badaxleydii galkacyo noqonaya gobolku laba barasaab buu yeelanaya laba taliye qaybeed buu yeelanaya laba maayir buu yeelanaya waxa ay ku wadaan waxa ka bedelaan maamulka salaam Faarax Maxamuud Dubad Somali Cable magaalada Laascaanood